dhaqdhaqaaqyadan ciidan ee ka soconaya meelo badan oo ka mid ah deegaanada Jubaland gaar ahaan gobolka Jubada hoose ayaa ujeedkiisu yahay xoraynta gobolka Jubada dhexe iyo degmooyinka qaar ee gobolka Jubada hoose sida degmada Xagar iyo Jamaame oo weli gacanta ugu jira kooxaha nabaddiidka. ciidamadii ugu badnaa ayaa ku qulqulaya degmada Afmadow ee gobolka Jubada hoose iyadoo halkaasi uu gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland waxaana haatan halkaasi ka dhaqaaqay cutubiyadii ugu horeeyay ee ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubaland kuwaas oo ku wajahan degmada Xagar ee gobolka Jubada hoose. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo cutubiye ka tirsan ciidamada daraawiishta kula hadlayay degmada Afmadow ayaa sheegay in ciidamadan marka ay xoreeyaan deegaanadaasi iyo degmooyinka Jubada hoose iyo Jubada dhexe loo diyaariyay ciidamo booliisa si deegaanadaasi ammaankeeda ay u xaqiijiyaan. deegaanada gacanta lagu qabanayo hawlgalka laga fulinayo iyo meeshii gacan lagu qabto waxay u baahan tahay ciidan looga tago. taas waxaan ugu talagalay ciidan boolisana wiiloo jooga oo loogu talagalay inay tagaan deegaanada oo u tababaran oo maamulka iyo deegaanada ka qayb qaadanaya. waxaan rajaynayaa inaad sugi doontaan waajibaadka iyo awaamirta la bixiyo, nooca hawlgalladu noqonayaan, amniga magaaladu siduu noqonayo, shaqada la qabanaya meeshay tegayso. intaasoo dhani waxay noqonaysaa mid aad iyo aad u qeexan oo laysu caddayn doono. aan u diyaargarowno awaamir la bixiyo, hawlo la qaybsado, shaqo aan u dhaqaaqno iyo hadafkii aan u nimidoon xaqiijiyo. waxaan rabaa inay ku sii daraan dagaalku in hal mar la qaado. waxaa ka horraysa marka hore inaad soodinta durkiso. waa inaan soconno, roondo dheer la sameeyo, meelaha wax lagu sheega la arbusho, iyaga waddooyinka loo galo ay ka go'aan. waxaa ka mida inaan kismaayo Afmadow isu furro oo si caadi ay noqoto. ciidanku uu degi doonaa janaac cabdalle iyo Afmadow ay isu furmaan, janaac cabdalle iyo buuliguud iyo kismaayona ay isu furmaan. taa waxay keenaysaa markaa inaan si xora u soconno. marka laga tago howlgalladan waxaa sidoo kale jira qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan deegaanada Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo ayaa si weyn u soo dhaweeyay howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab ee ka bilowday deegaanada Jubaland. waxaan shirkan isugu imaanay inaan u muujinno taageero dhaqdhaqaaqa lagu xoraynayo gobolka Jubada dhexe. dhaqdhaqaaqaasoo ay hormuud ka tahay dowlad goboleedka aan ka tirsannahay ee Jubaland, kaasoo uu hoggaanka u hayo madaxweynaheenna uu joogo golihii wasiirada iyo guddoomiyihii gobolka dhammaan ay joogaan hawlgelintii taliyihii hawlgelinta ciidamadii. waxaan leenahay meel kastoo aad joogtaan, nin kastooba meeshaad joogta qorigaaga ka soo qaado imow Afmadow. yaan bari laysdhihin, cidna yaan lagu eedayn, yaan lisxagan. nin kastana goobta u xoraysta asaga hadhow leeyaan lagu eedaynoo la xagan. aadan maxamed salaad, raadiyaha telefishinka qaranka, magaalada Kismaayo.